بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون marka hore waxaan halkan tacsi ugu dirayaa guud ahaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan qoyskii asxaabtii ay ka geeriyoodeen walaalihii ku shahiiday weerarkii argagixisadu ay ku soo qaadeen xarunta aqalka dawladda hoose 24ka bisha Juulaay 2019 xilli uu socday shirkii tubta ee dawladda hoose ee Xamar iyo maamulka gobolka Banaadir مسؤولينتا noogu shahiiday weerarkan argagixiso waxay ahaayeen shakhsiyaad ku sifoobay howlkarnimo daacadnimo wadaniyad iyo waliba inay ka goonayd inay dalkooda iyo dadkooda u adeegaan waxayna indho u ahaayeen maamulka gobolka Banaadir iyo guud ahaan qaranka Soomaaliyeed marka xiga waxaan eebo ugu baryeynaa mas'uuliyiintii ku dhaawacmay qaraxaasi oo ugu horeeyo duqa magaalada Muqdisho ahna gudoomiyaha gobolka Banaadir injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow inuu dhaawiciisa si dhaqsi ah u bogsoodo iyo inta kale la socotay dhaawacantay intaba intaasi kadib geeridu waa xaq qof kasta wuu dhimanayaa marka ajisiisu ay gasho hase ahaatee walaalaheen waxay argagixisadu ee aan diin iyo bini'aadanimo lahayn ay dileen iyagoo dalkooda iyo dadkooda u shaqeynaya waxaan leenahay walaalaheen way shahiideen allaha u naxariisto dhamaantood waxaanu aaminsanahay in qof kasta oo Soomaaliyeed asigoo dalkiisa iyo dadkiisa u adeegaya geeriyooda kuna baxa gacan ka xaq daran inuu yahay ahlu janna walaalayaal dalkan inuu dhismo oo uu cagihiisa dib u istaago waa waajib iyo shaqo saaran qof kasta oo Soomaali ah dhiig badan iyo nafaf badan baa u go'ay ilaalinta qaranka Soomaaliyeed dadka musiibadii 24kii Juulaay noogu baxayna waxay ka mid yihiin halyeeyada dhiigooda u huray qarannimada dalkooda iyo dadkooda sida daraadeed waxa kaliya ee aan sameyn karno inteena nool waa inaan u duceyno isla markaana aan ka shaqeyno hirgelinta himilada iyo rajadii ay wadeen sidoo kalena aan meel ugu soo wada jeesano sidii argagixisada aan ugu guuleysan lahayn maanta waxaanu joognaa maalintii hogaamiyihii islaamka ee Taariikh ibnu Siyaad oo ciidankiisii uu ka gubay doontii ay badda kaga gudbeen ee uu ku yiray oraahdii caan baxday xaggiina hore waxaa idinka xiga cadowga gadaashiinana badda waa inaad dagaalantaan oo aad guuleysataan shacabka Soomaaliyeed waxaynu maanta joognaa xilliga aan meel qura ugu soo wada jeesan lahayn sidii aan ugu wada dagaalami lahayn kooxaha argagixisada ee aanu rabin inaanu noolaano inaan ka shaqeyno horumarka dalkan inaanu dalkeena badbaadsano waa inaanu meel ugu soo wada jeesano si aanu horumar u gaarsiino dalkeena iyo dadkeena iyo diinteena intaba sida daraadeed kusimaha duqa magaalada Muqdisho ahna gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda Ibrahim Cumar Mahadalle Ibrahim Dheere asigoo ka duulaya sidii loo dardargelin lahaa howlaha shaqo ee dawladda hoose ee Xamar u haysay shacabka Soomaaliyeed isla markaana shaqooyinkii ay si caadi ah xafiisyada ugu soo noqon lahaayeen waxa uu magacaabay guddiyo kala gidisan kuwaasi oo ka shaqeynaya sidii loo dardargelin lahaa howlihii shaqo ee maamulka gobolka Banaadir u hayay shacabka Soomaaliyeed kusimaha duqa Ibrahim Dheere waxa uu faray dhammaan agaasime ku-xigeenadii ay ka baxeen agaasimayaasha inay si toos ah boosaskii u buuxiyaan howlihii shaqana ay u wadaan sidoo kale gudoomiye ku-xigeenadii degmooyinka ee iyaguna ka baxay gudoomiyaashii degmooyinka waxa uu faray in howlihii shaqo ee ka socday degmooyinka ay dardargeliyaan isla markaana shaqooyinka wadaan waxa uu sidoo kale kusimaha duqa magaalada Ibrahim Cumar Mahadalle magacaabay guddi ka shaqeeya maareynta iyo la tacaalidda xaaladaha degdega si howlihii caadiga ahayd dib u bilowdaan maanta oo maalin sabti ah aynu xasuusno in maalintii arbacada musiibo halkan ka dhacday waxaa si caadi ah u shaqeynaya xafiisyadii maamulka gobolka Banaadir
shaqaalihiina waxa ay markaa ka shaqeynayaan howlihii ay shacabka ka sugayeen. taana waxay daliil u tahay ayna caddaynaysaa in kooxaha argagixisada aysan na niyad jebin karin, isla markaana howlihii aynu u haynay shacabka aysan wiiqi karin. annaguna aanu diyaar u nahay in had iyo jeer aynu u adeegno shacabkeena Soomaaliyeed, isla markaana meel qur'aan ugu soo wada jeesano sidii aynu ula dagaalami lahayn, isaga celin lahayn kooxaha argagixisada ee aanu noo ogoleen nolosha iyo nabadda iyo inaanu dalkaani dib cagihiisa ugu istaago. maasanidin.